dowladda federaalka Soomaaliya ayaa diyaarisay qorshe weyn oo la xiriira in ciidanka midowga Afrika AUSOM laga saaro dalalka Itoobiya iyo Uganda kadib markii la ogaaday in dalalkaas ay ka shaqeynayaan waxyaabo aanay dan u ahayn marka la eego dhanka Soomaaliya. Itoobiya waxa si gaar ah loo ogaaday qorshaha weyn ay ka damacsan tahay dhanka Soomaaliya iyadoona muddooyinkii u dambeeyay مسؤولين كتيرسن حبناها معارض كإثيوبيا يكون محافظ كذا أي أحد وجود دينيين يسبدل كي سياسات كدعي ديجانا كوفر قلب الصومالية يجو كديجي سيدا إن إثيوبيا قاب كميدا لو كذا لقب صدي تاس أو كنتي إن مسؤولين الدولة الفدرالية الصومالية أن تاسي أي كعرودان مدحونا الصومالية حسن الشيخ محمود أو كسران بيدبو لأن كل ما مسؤولين سياسيين تراكيش كسر جيدا ديجانا دولة قبلات كوفر قلب الصومالية أيها أشجع سيدا ورركو إشجعيان إن أي دولة الفدرالية كوضو قرشوين أو لغوسو جيو أمني ديجانا كوفر قلب الصومالية سكة دوان سيدي هراء تاس أو دتك قهر أي كشجعين إن أريتاس أي تهي مد كيني كرتا in xubnaha Itoobiya laga wareejiyo goobaha inta badan ay ku sugayeen iyadoo ugu dambeyn albaabka baydhabo loo furi doono si ay isaga baxaan magaaladaasi. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ciidan aad u far badan oo qaarkood dhulka ka galay iyo kuwa diyaarada lagu qaaday waxa ay geysay magaalada baydhabo. shantii cishe u dambeysay magaaladaasi waxay qaabilaysay ciidamo far badan oo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa daraawiishta koonfur galbeed Soomaaliya iyadoona dhanka deegaanada banaanka la geeyay ciidamo ka tirsan kuwa deegaanka kuwaas oo qayb ka ah qorshooyinka lagu sugayo amniga deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. ila wargala ayaa warbaahinta xuraasi waxay u sheegeen in saacadihii u dambeeyay ay socdeen dhaqdhaqaaqyo iyo kulamo kala duwan iyadoona arimahan oo idil diiradda lagu saarayo sida deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya wax badan looga bedeli lahaa xaaladda siyaasadeed ee deegaanadaasi ka jira. ciidanka dowladda federaalka Itoobiya ayaa waxa ay in muddo ka shaqeynayeen sidii ay dib u dhigi lahaayeen horumarka ka jira dhanka Soomaaliya iyadoona xukuumadda Abiy Ahmed marar badan ay qaaday tallaabooyin dhowr ah oo ay ku doonaysay in ay meesha ugu saarto dadaalada dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada qaarkood ay wadeen ee la xiriira in laga soo kabto dhibaatooyinkii iyo qalaasihii dalka Soomaaliya soo gaaray. مسؤول سرو كتيرسان دولة فدرالية الصومالية أيها وحول شيء إن أرنتان دبلوماسي أهان أي كديجان تهاي إن إثيوبيا ويهيد الصومالية وصور مانيو مرحد دي عيدة كفدرالية أو كاشان يدرالك حلو فضلاء سيدا مصر إريتريا إن تركيا iyo dalal kaleba ay bilaabeen abaabul iyo qorshe waaweyn oo la xiriira sugidda amniga guud ee deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. muddooyinkii u dambeeyay dowladda federaalka waxay adeegsanaysay diyaarado gaar ah oo ay leeyihiin ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya qaarkood Turkiga ayaa dowladda federaalka Soomaaliya amaahiyay iyadoona wararka soo baxaya ay tilmaamayaan in lacagaha diyaaradaasi dowladdu ay ku bixi doonto marka shidaalka Soomaaliya ee bishan Abriil 2026 qodistiisa la bilaabo lana soo saaro muddo dhowr bilood kadibna dowladda federaalka Soomaaliya iyo Turkiga ay kala saxiixan doonaan heshiisyo cusub oo lagu horumarinayo dhanka ciidanka maadaama dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay arrimaha ciidanka in ay yihiin kuwa muhiim gaar u leh marka la eego gudaha Soomaaliya ayaa doonaysa in ay dhinaca isaga riixdo dalalka dariska la ah oo in muddo dhibaato ku hayay iyadoona wadamada Soomaaliya dariska la ah waa Itoobiya iyo sidoo kale dhanka iyo Kenya ay wadaan dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira arrimahaasi hadda socda iyadoona dalka Uganda oo dhowr jeer hore uu sheegay in uu diyaar u yahay in ciidankiisa uu kala baxo Soomaaliya in ay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira arrimahaasi si loo buddhigo qorshaha cusub ee siyaasadeed. Uganda oo ciidan Soomaaliya ay ka joogaan tan iyo 2007 ayaa waxa ay dowladda federaalku awoodooda hoos u dhigtay ciidamadaasi iyadoona la filayo in dhawaan la xiro xafiiska qaramada midoobe ee Soomaaliya oo ah halka ugu badan ciidamada Ugandeska koofida buluuga wata qaramada midoobana xafiisyada waardiye ay ku sugan yihiin. qorshaha isbeddelka amniga Soomaaliya oo ay dowladda federaalka Soomaaliya kala kaashanayso dalalka kala duwan ee caalamka si gaar ah wadamada sida dhow xiriirka kala dhaxeeya ayaa waxa ay abuureen dadaalo kala duwan oo cusub iyadoona mas'uuliyiinta dowladdu ay sheegeen in ay wadaan dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo lagu adkeenayo amniga guud ee dalka.
sargaal sare oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu dhankiisa sheegay in isbedeladan ay yihiin kuwo ku imaaday dadaalo kala duwan oo dowladdu ay sameysay iyadoona Soomaaliya markan ay dhabeynayso sida qorshuhu yahay riyadeedii ahayd in ay soo saarato shidaalkeeda kana mid noqoto dalalka ku horumaray dhanka iyo kheyraadka iyadoona dalalka aanay badda lahayn ee ciidamadooda ka jooga Soomaaliya intooda badan mural dilaac ay ku noqdeen dhaqdhaqaaqyada kala duwan iyo isbedelada degdega Soomaaliya ay ku talaabsatay wixii warar iyo dhacdooyin arrimaha ka soo kordha baahinteena tala xigta warbaahinta xuraansi ku daawo waad ku maasantahay daawashada iyo ku xirnaanta janalka iyaga fadlan haddii kugu cusub yahay janalkan subscribe saar oo riix gamareelka si aad u rukumato wararka dhacdooyinka kala duwan ee dalka ka taagan hadba siday noo soo gaaraan ayaan idinkugu soo gudbi doonaa waad ku maasantihiin mar kale daawashadiina iyo ku xirnaanta janalka iyaga nabadgelyo